السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن سلامي ولا ليك قالقة إن واحد من الله ولا شيء هداية حسن إن channelka وهداية حسن أصحابتي بقالقة سوري دواذا وحرة إن شاكيو إن شاكذا ونحاوي إن برنامج كينا حاول حوك سابسيني هاي وحنو هادلايا إن dadka isisiiya ama wiil ha ahaado wiil ama gabar ha ahaato isisiiya dadka waxay siinayaan macnaha hadaa idin fasiro macnaha isisiiyo waxaan kugu fasirayaa wiil ama gabar jeclaaday ama gabar jeclaatay wiil waaye macnaha wiilka markuu gabadha jeclaado wuu isisiinayaa qalbigiisa ayadoo siinayaa aad u jeclaanayaa jecel saaid oo siinayaa dadkan waxay ku maamaahan Soomaalida qofka bini aadanka ha wada jeclaanin nici doontida ma taqaanide ama ha wada nicin jeclaan doontida ma taqaanide marka aniga arintaas marka aniga ka hadlaaya arintaas oo ah gabara waxay jeclaanaysaa wiilkaas markay jeclaato waxay u jeclaanaysaa xoog u jeclaanaysaa inay daqiiqad ayna arkin marabto daqiiqad kasta waxay rabtaa inuu ag joogo wiila wuxuu jeclaanayaa gabar marwalba wuxuu jecel yahay inay is haystaan ama ha noqoto ooradiisa oo xaaskiisa ha noqoto ama ha noqoto qof ay isu doonan yihiin hadda kadib uu guursan rabo naftiisu siinaya labadaas qof hadduu qofka kaleeto oona jaceylka saaid oona u haynin wuxuu dhib ku yahay qofka isisiiya qofkaas ayuu dhib ku yahay wuxuu dareemayaa mar walbo welwel dareemayaa xanuun dareemayaa qofka makaa tegi doonaa kuma xisaabtan taas dhibka marka meesha yaalo maxaa waaye oo u baahan inaan ka hadlo dhibka meesha yaalo waxaa waaye qofka haddaad jeclaatid aad jeceel waxaad liqdid qoftaan beri hadduu kaa tagsay u noolaa rabtaa waaye waa bini aadane hadduu kaa tago sideed u noolaa rabtaa hadduu isagu ku naco sideed u noolaa rabtaa naftaada sidee u maareynaysaa qofkii aad isisiisay oo xooga u jeclaatay wuu kaa tegi marka noloshaada maxaa u dambeyn doona waaye marka sidee u maareynaysaa sidee u noolaanaysaa marka aniga waxaan kula talinayaa dadka jaceylada hadda sameynaayo dad waaweynna way ku jiraan dad yarna way ku jiraan waxaan leeyahay isxakameeya oo maxaa la dhahay dadka xoog ha u jeclaanina berihan waxaa soo badanaayo qof oynaayo oo dhibaataysan oo lagu gaado xagga jaceylka laga soo galay jaceyl beenaha lagu abuurayaa hantidiisii noloshiisii maxaa la dhahay farxadiisii intii oo dhan la isku darsanayaa intii oo dhan markay gacanta lagu dhigana waa looga baxayaa yaa qofkaas marka maxaa nolol u ah maxaa u ah maxaa dhihi jiray adduunyo u ah maxaa ii sheeg siduu u noolaanaya naftiisa u iqaabaya qofkaas marka waxaan leeyahay aniga walaalahayga Soomaalida waxaan kula talinayaa inay jaceylkaas xidaafkaa iska dhaafaan iska ilaaliyaan qofka aad jeclaanaysid wuxuu yahay mataqaanid waa isbarateen dhaliyo idinkama dhexayso adigu ma dhalin kumana dhalin horta jaceylka waa labo waa midaan dhammaanin aa jiro midkaas aan dhammaanin yaa waaye sorry waa jaceylka idinka dhexeeya adiga iyo waalidkaaga maxaa dhihi jiray adiga iyo waalidkaaga jaceylka idinka dhexeeya waxaa waaye mataqaana ma dhammaanayo waayo markuu dhinto waad usoo duceynaysaa markuu dhinto waa usoo duceynaysaa ilaahay qabrigu qaboojiyaad leedahay qur-aan usoo akhrinaysaa kaas waa midkaan dhammaanin
haddii adiga aad ilmo tahane jaceylka waalidka uu kuu qabo ma dhammaanayo, weligiis intuu adduunyada saaran yahay dusheeda wuu ku jeclaanaya. jaceylka aan ka hadlaayo kaas maaha. jaceylka aan ka hadlaayo waxaa waaye labada qof ee isu imaaday ee rabaan ama inay isguursadaan ama isqaba ee jaceylka isu qiyaameynayo. hadhowti qofaa qof kale xoogu jeclaanayo. jaceylka dhabtaa kama hadlaayo. jaceylka dhabta ah kar inuu dhab naqaa in kale ilaah oo qofkaas wada siinaan leeyahay aniga. teeda kaleete qofka waxaa shaxshaxda badan leh, shaxshaxda muujinaayo, ku hordafleynaayo, qofka haddaan mararka qaar danuu leeyahay mararka qaar qofkaas maadaama uu dan leeyahana maxaa la dhihi jiray dantiisa gaar uu oofsanaya, dantiisuu kugu daboolanaya iyo baahiyihiisa gaarka. marka waxaan leeyahay gabdhaha, siiba gabdhahan la hadlaayo aniga, ka digtoonaada jaceylka noocaasa ee maxaa la dhahay ragga u qaadaan gabdhaha. waxaan leeyahay ka digtoonaada. jaceylka noocaas yaa laydinku soo xerogelinin, yaa hantidiina laydinkaga dhicin. maxaa la dhahay qalbigiina yaa laydinka dhicin. hanti horta waa la helaa, laakiin qalbiga lama helaayo. qalbigiina yaa laydinka dhicin. xataa mustaqbalkiinuu saameynaya. ninka beenoolaha ah hadduu qalbigaaga kaa qaato mustaqbalkaaga dambe xataa wuu ku saameynaya. waayo nin kaste oo ku jeclaado oo dhab kuu jeclaado xataa ma aaminaysid. waxaad u malaynaysaa inuu ku khiyaanayo. waxaad noqonaysaa qof maalin walba feejigan, qof maalin walba taagan, aan hordeynin, wax iska ilaalinaya noqonaysaa. marka saas la aadligeeda waxaan leeyahay sorry, jaceylka khiyaanada iska ilaaliya, yaan laydin khiyaanin. jaceylka dhaftaana sida aad ku gara kartid aad ku ogaa karto video kale oo soo hadli doono hadduu ilaahay ka raali noqdo. jaceylka dhaftaana waa la yaqaanaa sida uu yaalo iyo siduu noqdo. ma fahanteen? mar walbana jaceylka dhabta ah mid dhammaada ma ahan. jaceylka khiyaanada laakiin waxaan leeyahay gabdhaheen soomaaliyeed iska ilaaliya. iyo ilintiin dhulka ku dhammaynin. daacad way dhammaatee, wax daacadana way yaryihiin. dad daacad way jiraan laakiin way yaryihiin. marka waxaan leeyahay in badan aan jaceylka soo sheekaysana iyo guryaha hala dhiso, guryaha hala yeelo, guryaha hala dhiso waa run, laakiinse yaa guryaha la dhisi kartaa, yaad jaceyl la samayn kartaa, yaad owlaad u dhali kartaa. taasaa la rabaa in la isweydiiyo. mar walbana waxaa loo baahan yahay taas in laga fikiro. laakiin mararkan dambe waxaa yimid jaceyl iska baashaale, iska qosla. dadka qaaraaba waxay u yaqaaneenba waxaa saas maahan oo maamaayaa laga dhigtay. waa jaceylka soomaalida, waa jaceylka soomaalida ayaa maamaha laga dhigtay. marka walaalayga qaaliga soomaali waa nahay, ilaah naga dhigay. ilaahay subxaana watacaalana waxaan leeyahay nabadgelyo ammaanaha hana siiyo. marka laakiin waxaan qabaa inuu baryahan soo batay jaceylka laysku khiyaanayo. maxaa la dhahay dad xataa laga yaabo inay u dhintaan, meelaha iska soo tuuraan, xarig isgeliyaan. marka waxaan leeyahay naftiina ilaashada, dadka xoog ha u jeclaana. aniga mawduucayga caawa waxaa waaye ha iswada siinin, bini aadan ha iswada siinin. waxaa soo gadata ma ahan, waxaa adiga dhulka qodatana ma ahan, waxaa gacantaada ku samaysata ma ahan. qofkaas beritooda uu kaa tegayaa. jaceylkaaga xadid, iska dhig qof adag. taasaan rabaa inaan ka hadlo. ma fahanteen? qofka videoga dambana la socda insha allah. jaceylka dhabtaan uga hadlayaa sida aad ku gara kartid iyo qofka ku jecel sida uu yaalo iyo dabeecadihiisa iyo dabeecadaha lagu ogaa karo qofka ku jecel. marka asxaabtayda qaaliga waxaan leeyahay mar labaad iyo mar saddexaadba kusoo dhawaada janalka Hidaaya Xasan oo walaasheen Hidaaya Xasan mar walbo qalbi furan weji farxad leh idinku soo dhaweynaysa mar walbo walaalayga qaaliga. video waxaa uga hadlayaa idinka waa ogtiin baraha bulshada meel kasta iyo maxaa la dhahay xaafad kasta waxaa qabsaday jaceylka beenta ah ee gabdhaha lagu khiyaanayo, ee gabdhaha lagu soo xerogelinayo,
wiilasha qaarkood oo qayaano daacadda ah dad daacada way naga buuxaan laakiinse qayaanoolayaasha ayaa soo badanaya baryahan marka waxaan leeyahay asxaabay hadday habeen idin tahay habeenka idin wacnaado hadday maalin idin tahane maalintaa idin wacnaato waxaan idin salaameynaya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh